الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد waxaynu ka bilaabaynaa aayadda 103 ee ka mida suuratu nisaa qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi faidaa qadaytumu salaa marka salaada dhammaystirtaane salaadii tukataan fadkuru llaha ilaahay xusa qiyaaman idinka oo taagan waqucuudan idinka oo fadhiya wacalaa junuubikum idinkoo dhinaciina u jiifa فإذا اطمأننتم مركا أحسشان الدجنان شهشان ينبتجليو فأقيموا الصلاة صلاة أوجا إن الصلاة صلاة دي كانت وحي نقطة على المؤمنين الدتك إلهي رمية الشودة كتابا مثل جوا تبيي موقوتا أو وقت له ولا تهنوا هكذا مرضى راننا في ابتغاء القوم قرض يسيسان إن راتستان أو ضبق شان تاهك قابننا إن تكونوا تعلمون هدي آدم غنيسان هداتهين كوا دم غنية تقال كالدرادية نبيدن قاري فإنهم يعلمون قالوا وحي أدم غنيان كما تعلمون إذن كوا بس أدم غنيسان وحل الديرتهين وترجون من الله إلهي وحا كسوغيسان ما لا يرجون وحان إلهي كسوغينين يقول وكان الله عليما حكيما إلهي بقى هذا من علم بدن وحكمة ضلع إنا أنزلنا إليك أنك وحن كوسودة إن النبي محمد والكتاب قرآنك بالحق سودة نبق وبعض الكفوجية لتحكم بين الناس سيادتك أوك لصارته بما أراك الله وحي إلهي أوك أركسية أما أوك فهمسية أما أوك تسيي ولا تكونها النقنن للخائنين كوا وحسوي دارين خيامة بدن خصيما بدو دودية واستغفر الله إلهي ندب بداف ويديس إن الله كان إلهي وحو نقضي غفورا كي دنب قدافة رحيما نون حريست لبدا الرمود السقع لغا هلا waxaad arkaysaa miisaanka iyo mansilada iyo darajada ilaahay salaadu daraadeed xaaladihii adadkaaba ilaahay uu ku celcelinaya salaadii ha ka tagin xaaladda adag buu qofku ugu baahi badan yahay xiriirka adaga ilaahay uu la leeyahay subxaanahu wa tacaala salaada iyo inuu ilaahay khaatumada ku waafajiyo markuu ilaahay qofka khayr la doono isticmalahu nabigu leeyahay amalun buu waafajiyaa maxay taybay asxaabtu leeyahay isticmalahu amal saalix buu waafajiyaa naftu kaga qaadaa isagoo amalkii saalixa wada marka adoo tukanaya inay habada kugu dhacdo naftu ka baxda la doonaya hadaad bukaan tahayna adigoo tukanaya ama sujuudsan ama rukuucsan inay ka tag وحالة wanaagsan lagugu soo gabagabeeyay khaatumada fiican salaada marka aad dhameystirataan dikrigiisii wada dikriguna uu kala joogsanin xaalad kasta sara joog fadhiga iyo jiifka marka idminaanu yimaadeen la dego ee cabsidii laga baxo cibaadadii miyaa la deynaya waa lacaga fidsanaya biya maya fa aqiimu salaa salaada ooga waqtigaas aaba loo miirsadayo loo caga dhigtayo loo nafisayo loo farbaxay ilaahay uu sabeexu salaadu waa waajib waqti leh oo saaran dadka alla yaqaanka ah waajib waqti leh oo saaran mu'miniinta inna salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutan shuruudaheedana waxa kamid ah in waqtigeeda la tukado salaad walbana waqtiga ay leedahay xaqiisa hore iyo xaqiisa dambe iyo inta u dhaxaysa ملك الجبريل بو إلهي وصادر النبي محمد وتسيي عليهم الصلاة والسلام ساسو إلهي باتكي إن الصلاة كانت على المؤمنين إيمان با يا هجا يقف إيمان الآن تنوحي كان تانو قفك صلاة يسكدايا إيمان كنوحي كان قفك إنو صلاة إلى عليه كتابا بمعنى مكتوبا ومفروضا مؤقتا وقت له جوابدي markuu ilaahay ka hadlay cibaadada uu dadka ku guubaabinaya oo dhab ahaanna tacadowga laga adkaado ayaa wuxuu ku xigsiiyay guubaadadii muuqatay ee maadiga ahayd farsamo ee cadowga lagula dagaalamayo wuxuu yiri wala tahinu fi ibtigha'il qawm qolay saysaana ina raadsataan oo dabagashaan oo weerartaan oo kaga horeysaan inaba wahayu idin kaga dhacay
wahanku waa tamar darrada ku timaada dadka dareenkooda iyo moralkooda iyo diyaargarowgooda taasi idinku dhicin si cajiiba ilaahay ummadda ula hadlo waa gubaabo la yaab leh haddaa idinku damqanaysaan hadda iyaguna waxay u damqanayaan sidaa idinku u damqanaysaan laakiin waxaa jira waxaa haysataan waxaanay haysan oo si aynu horeba usoo sheegnay guul iyo gobonnimo iyo abaalmarin ilaahay taa ma hayaan iyagu waayahay markuu ilaahay ka hadlay islaaxii khaarijigahaa in dabadda la hagaajiyo oo cadowga gaashaan adag laga dhigto iyo awood iimaan u hagayo ee uu ka soo hadlay islaaxii shakhsiga ahaa iyo qofku naftiisa siduu u wanaajinayo xidhiirka alla u adkaynayo buu ka hadlayaa islaaxii ijtimaaciga ahaa xidhiirkii bulsho ay ku hagaagi lahayd ama ummadi ay ku xidhiirkooda wixii hagaajin lahaa oo cadaalad haddii cadaalad la waayo cadowguna wuu ka adkaanaya ummaduna iskuma duubnaanayso ifsaad baa isu baxaya wax islaax iyo wanaag la yidhaha ma jiro idan marka aayaadkan soo socdaa waxay ka hadlayaan way soo bandhigayaan xukumka iyo cadaaladda inuu ku salaysan yahay islaamka aayadahani waxay ku soo degeen kolay sida daahirkooda aynu ka arkayno iyagoo dee caam ahoo cid walba khuseynaya had walbana lagu dhaqmayo qallooc ka yimid dadka qaarkood iyo nebigoo si qalloocan wax loogu sheegay ayaa ilaahay uu toosinayaayo uu leeyahay mafhuumkaas arrintaas sidaa aad u fahamtay maaha waa sidaa saasay ku saxantay sidaa ha yeelin sidaana yeel culamaa tafsiir qaarkoodna maraajicdooda waxa ay ku qoraan qisadaas qisay ku qoraan qaarkoodna ay daciif ka dhigaan ragga qaarkoodna ay yidhaahdaan waa xasan oo albaniya oo kale wuxuu ku jira ragga xasanka ku tilmaamaya ee mukharijiinta markaa mucaasiriinta ah waa qisatu bani ubayriq qisada la yidhaahdo niman ilmo ubayriq la odhan jiray baa jirayoo madiine deganaan jiray magacyo saddexa bay lahayn oo isku eg bishri bushayr mubashir nimankaasi usrad ama qoys yaro kakan bay ahaayeen waxbay yaro qaadqaadi jireen dadkan yaro qalqaaliga wax qaadqaada ayay ahaayeen sina waxbaa loogu yaro tuhmi jiray munaafiqnimo iyo iimaan daciifnimo iyo wax mara nin asxaabiyahoo rifaacat ibnu zayd la yidhaahdo xaafaddiisii habeenada ka mida u dhaceen hub iyo raashin bay ka qaateen inaanu adeeruyo asxaabiyahoo qataatat ibnu nucmaan la odhanayay ayuu u diro wuxu uhi war hubkii iyo raashinkii ma hayne balbaadi doon oday iska weyna uu ahaa haddii la raadiyeyna nimankii baa lagu tuhmay iyana dad kale ay ku riixeen warkii iyagiibuu isugu soo ururay reer ubayriq inay alaabtii qaateen markii ay ogaadeen in nebigii ashkatadii ay gaadhay ee qataata uu gaadhsiiyey ee uhi qoladaasaan wax ku tuhmaynaaye bal hubkuu nooga keena raashinkaaba iska qaateene arrintii uu nebiga gaadhsiiyey ayaguna xoogaa kaartaa bay sameeyeenoo qolay direen asxaabta wanaagsan ka mida oo waxay idhaahdeen dee waxaana lagu sheegay ma qabnee bal nebiga u sheega qoladiina nebigii u tegeenoo waxay idhaahdeen nimanka reer ubayriq waxaan laga sheegay wax saxa maaha rasuul allah waa niman iska wanaagsan waxaana ma qabaan qataatihii soo ashkatooday buu nebigu u yeedho wuxu uhi warniyo nimanka waxaanad ka sheegtay odayaal waaweyn baa ii sheegay inaanay sax ahayn nimanka waad ku ciirtay qataatana madaxuu qabsado adeerkii buu tego wuxu uhi arrinkii inagu qalloocsamay cawaj buu inoogu dhacay buu qataatana madaxuu qabsado wuxu uhi wallahu lmustacaan sidii nebi yacquub yihi wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun wuu iska fadhiistay ilaahay aan waxba ka qarsoomayn baa aayadahan istaba socda ayuu soo dejiyo ilaa nebiga lagu canaananayo calayhi salaatu wasalaam iyagiina lagu fashilinayo warkii markii uu caddaaday hubkii nebigaa loo keenay odaygii baa loo celiyey isna wuxuu ihi waa jihaadkan ku sadaqaystay kol hadduu ilaahay anigii ii rumeeyey oo la iberi yeelay waa sadaqa bu qataatana wuxuu leey adeerka iimaankiisa waabaan ka shakisanaaye markaasaan ku qancay inuu iimaankiisu qawi reer ubayriqna way kala yaaceen mid ka mid ahoo gabay iyo wax tirin jiray meelaha ma ku tegey waa kii xasaan gabayga ka daba tiriyey gabadhii u tegey iyadiina ay alaabtii bannaanka ugu daadisay lahayd gabaygii xasaan ayaad iga daba keentay almuhim
qisadaana waa la sheegay laakiin sidaa aynu horeba u xusnay wax la isyaro weydaariyuu ilaahay toosiyey dad been sheegayna ilaahay waa fashiliyey kuwii runta sheegayeyna waa xoojiyey markaa had iyo jeer waxa buhtaanka la idhaha been abuuradka ilaahay uma dulqaato subxaana wa tacaala deg deg buu beeniyaa aayaadkan markaa ilaahay uu soo dejiyey waxaa usoo horeysa innaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah toos buu ilaahay u lahaa kitaabkan waxaan kugu soo dejiyey si dadka aada ugu kala xukunto nebi maxamedow xaquu ilaahay ku tusiyey kuwa khaa'iniintana ha u doodin khaa'iniinta ha u doodin saasaa ilaahay u leeyahy ilaahayna dembi dhaaf weydiisa wixii lagu sheegay adiguna aada sii gudbisay dembiga ilaahay uu dhaafa u naxariistaa haddaynu aayaadka hore iyo kuwan bayse soo raacino waxyaabaha aynu ka faa'iidaysan karno waxaynu dib ugu noqonaynaa faidaa qadaytum الصalaaة fadkuru اllaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubikum salaada oo la oogo la tukado la dhammaystiroo laga baxo laa yacnii daalika tarka silati billaahi ilaa silatin ukhraa ma sheegaysa haddaad salaada iyo masaajidka arrinkiisa dhammayso in xidhiidhka ilaahay aada furto ma sheegayso xidhiidhka ilaahay ilbiriqsi kama maarantid adaa u baahan markaad masaajidka ka baxdo ee aada suuqa tagto ee aada meheradda tagto ee aada xafiiska tagto ee aada qoyska iyo caailada iyo caruurta u tagto dikrigu ha kuu socdo asila baynaka wa bayna allah laa tastaxiqu lqaطc inaad goyso xidhiidhkaaga iyo ka ilaahay ma mudna waxaaba lagu yihi isla taag oo la fadhiiso oo la jiifso marka xidhiidh cajiiba weeye xidhiidhkaad ilaahay la leeday ma mudna in wax kale lagu doorsado تشhريiع الصلaواaت بأwقاaت يuرaبي المسلم عalى النظاaم وadiqة المawaaعيid salaadahan شhantaa waktiyadan laynoo sameeye waxay ka turjumayaan qofka islaamku wuxuu baraya nidaamka iyo inuu ballamaha si xeel dheer u ilaaliyo qofka shanta salaadood ilaaliyo waa lagu talageli karaa ballantiisa hadduu salaadaha googooyo adna waxba hala ballamin kol hadduu ilaahay u jaray adna wuu kuu jaray marka nidaamka salaad waliba waxay leedahay wakti lagu talagalo ka horeeya oo xamaamka la galo oo lasoo tooso dharka la xidho oo la diyaar garoobo oo masaajidka laysa soo taago ka horba qofkaasi markaa nidaamkaasaa loo barayaa nidaamka maanta muslimka loogu faano salaadoodu ka muuqanaya iyo cibaadooyinkooda mujaahidiinta ilaahay wuxuu faray bisalaati wa mudaawamati dikri wadaalika cawnan cala habaat dadka jihaadaya ilaahay wuxuu uhi salaada iyo dikrigoo joogtaysaan ogaada labadaa maxaa looga jeedaa waxay kaa saacidayaan cala ahabaati amaama alcadow in cadowga hortiisa aada xejisato oonad cararin haddaad salaada xejiso oo aada dikriga xejisood nafta intaa ku adkaysood kaga guulaysato difaacana waad adkaysan doonta haddaad wardiga kari weyda iyo ragcadaha xabadahana kari maysid waayo naftii maad muquunin cadowna muquunin kari maysid naftaadood muquunisaabaa ka horeeya cadowgaad muquuniso marka cala habaat sugnaanshahay kaa caawinaysa salaada layidhi ilaali iyo dikrigu almuxaaribuuna tajmacuhum alaalaam wa tufariquhum alaamaal fahal yakuunu ahlu lbaaili asbara min ahli اlxaq nimankan gaalada aalaamtu way kulminaysaa iyo damqashada laakiin aamaal kulminaysaa ma jirto ididiilo kuma kulmaane midba waxbuu ku fikiraya inagu aamaasheenna way iswaafaqsantao ilaahay raalli noqoshiisa iyo jannadiisa iyo guushiisaynu doonaynaa mana mudnoo ma habboona iyadoo ahlulbaatilku ay sabrayaan ahlulxaqu inay sabri kari waayaan waana casnimada iska ilaaliya buu ilahay leeyay kii ahlulbaatilka hadduu sabrayo oo damqashadii uu xamilay adigoo ahlulxaqi sideed u sabri kari weydaa oo ilaahay ka sugaya wuxuu ku ballan qaaday low istaxdarnaa maa lanaa cinda allah lahaana calayna kullu maa nashcuru aw maa nulaaqiih haddaynu sawir buuxo ka qaadanno wuxuu ilaahay inoo diyaariyey oo aynu ku qanacsannahay waxa inoo fududaanaya waxa ina damqaya jidhka iyo nafta iyo ehelka waxa damqanaya waynu xamilaynaa si dhaba haddaynu ugu qanacsannahay wuxuu ilaahay inoo ballan qaaday inaynu helayno manhaj اlambiyaa alcadlu fi اlaxkaam wa tarku muxaabaati اlanaam manhajka rusushu waxa weeye markay wax xukumayaan inay cadaaladda wax ku xukumaan kana durkaan dadka inay dheefsiiyaan
ka ilaahay la dadka ku kala xukun sharciga oo cid ha u eexan walaa takun lil khaa'iniina khasiima wa al-'adlu fi al-ahkaam wa tarku muhaabaat lana inaad cid u dheefsiiso aad dhinaciisa u qalloocsato iska ilaali sharciga ilaahay iyo sida uu yahay inaad u hirgeliso way saasa nabiga la faray inaguna aynu ku amrana والبعد ولا بد من البعد عن المجاملة وإن لقدرك وحلا قرية وحقين لقرية ولا تكن للخائنين خصيما وحيساعدوا هرشوك سنة يساعد نينك الله يركع أما وكيل دعوها عيدوا أركا يا باطل يا قردر إن يكدوا ذا يسينوا وكيل النغضة قفك وين ورئيست الله يركع ويسكب أنت مانت تدبضن بالله يرنمذا كل شقيست يا وكيل دعوة أما قف كستو دعوة يا وكيل النقان كرا مركض ورئيسته أتكون قناعة وحيابها وكدوا ذا يا إنه حق دريه قنعي وحلا هذا وحاء وضع ملهتها هلي ميسيد حق ملهد رالي هو اسكده هدو كورا هذا ما يسيدا ايغو ودنا انوغو كوغو ودي ما ينبدي inaad ka dhaqaajiso way laakiin inaad tiraahdo aniga ayaa marsiin doona inta isi hadaad ii kordhiso waan sii kordhinaya sidaad wuxuu heli lahayd waa taa ilaahay u diido khaa'in baad aduguna tahay maadaama khasiim iyo mid u doodaya tahay khaa'inka aduguna khaa'in baad waa arrin waajiba waa xaraan qof baadil ku doodaya ama loo yar u noqo ama reerkiina ha ahaado ama ehelkaaga ha ahaado ama suldaan iyo caaqil oo hawo inaad garab gasho xaraan inaad tiraahdo waa nabigu ka hadlay markuu laha gacanta qabo qofka iskaga joognaadeen daraasad baad sameynaysaa baxthiya baaritaan baad sameynaysaa xaqu malihida ka joogso way wala takun lil khaa'iniina khasiima waxa u haboon qofka wax xukumaya أن يستغفر قبل الحكم طلبا للتوفيق وبعد الحكم طلبا لجبر التقصير مركا أضو حكومة يسكار إلها استغفار ويديس تنبداف سيو كوافة حق إيه صوابك مركا الحكم كلما يسنى إلها استغفار ويديس سيو كوافة سيو كاغا صحاوي حياد قلو عسي يعني أنا دوك السن طبعا وللتقصير وللجبر marka istighfaartu qabla al-hukm way noqotaa bacda al-hukm way noqotaa ilaahay ba xukunkii nabiga la faray wuxuu daba dhigay wastaghfirillah inna allaha kana ghafuuran rahiima adigoo ku qanacsan sharciga inuu sidaa tahay adigoo aan waxba khiyaameynaynin haddana istighfaarta ka hor iyo kadib ogow marka horena ilaahay waafaji marka dambena ilaahay iga aqbal waa sidan markaynu salaada tukano ama soomka dhamayno ama xajka dhamayno استغفر الله والله ينفري استغفر الله استغفر الله استغفر الله مرنا والله ويافج مرنا اله ويصح وحيغا نافته ايغا نقصامي نبي محمد عليه الصلاه والسلام يدعيسي مرarka qaar kood ijtihaadi ra'yigiisa inuu isticmaalo haabay leen culimadu wixii marka nas aan u haynin iyo daliil ra'yigiisa uu isticmaali karaya iyo ijtihaad wixii aanu marka daliil u haynin وكا إلهي بما أراك الله وحي إلهي كو أركسيو وحي إلهي كو أركسيو واتك اجتهادي وانا اتكد ذلك دون تصيدي كل النقطابان اتكو حكم مسألة خلافية لكن علماء إن بدنوا كم دي وقعان وحرمها السنة وحيابها نكفى إذا سنينو آياتك أي نصاء نافنا ينوم مركا ينوم وقنايا الله سبحانه وتعالى